daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono Axmed Aadan Ismaaciil oo ku magac dheer Kayse. Kayse wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland, haddana waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee Somaliland. Muddo dhowr cisho ka hor ah ayaana loo wareejiyay dhanka wasaaradda qorsheynta. Marka ugu horeysa aan idhaahdo Kayse kusoo dhawow barnaamijka gaarka ah. waad mahadsantahay Duraan, waana soo dhawahay aadna kaaga mahadnaqaya fursadan iyadoo rabadaan oo la soo yahay aad siisay adaan mudan sidii noogu soo naga codsigeena nooga aqbashana waa kaaga mahad celinaa. Kayse wax badan baan maanta isku daardaari doonaa, rabadaan wareysyo badan aan la qaadin, laakiin arrimo badan oo taagan daraadood aniga adigu wasla dhigi doonaa filayaa galabta. waa sax weeye waaye Kayse marka ugu horeysa safar baad kusoo gaartay magaalada London dalka Ingiriiska. Muxuu safarkaagaasi sal ku hayaa ama aad arrintaas iyada horta runtii safarkaygan waxa weeyaan safar iyo shakhsi gaar oo fasaxa oo heerkan ku soo aaday ama aan ugu imi isla markaana aanu ku tala jirno haddii ilaahay awoodda la ilaahdo inaanu berito waan babaxno oon soo cimraysano oon marka qabanno. marka runtii shakhsi ahaan ayuu ahaa ama mid ii gaara ayuu ahaa fasaxaygalo fasax shaqo muu ahayn, haddana isagoo fasaxa shaqaan ahayn bal haddana xafiiska UK ay Soomaaliya ku leedahay wakiilkeena waan boodo shaqaalihina waan la kulmay, laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd in arrin fasax shaqaa bay ahayd. fasax waxay ahayd in gaarun bay ahayd. way Kayse dad badan waxay isweydiinayaan Kayse waa nin dhalinyaro haddana dhanka siyaasadda muddo cabaar ku soo jiray. imse sano ayaad ahayd wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland. intii aad xilkaasi joogtayna inta aad ka xasuusato maxaa ka mid ah waxyaabihii kugu waaweynaa oo aad is dhihi karto waa idin qabsoomeen? horta bismillahi raxmaan horta runtii wasiir ku-xigeenka waxaa iga horeeyay markii hore daakhiliga wasaaradda arrimaha gudaha ayaan joogi jiray oo agaasimaha guud ka ahaa 2004 ilaa 2009 xilligii riyaale. marka 2009 wixii ka dambeeyey oo ahaa February bishii sanadkaasi labaad 2009 ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda laga dhigay. dabeetana waxaan la dhamaystay xilligii in madaxweynaha ka ahaa ama xukuumaddii daahir yaale kaahin ayaan la dhamaystay. marka waxaan xilka wareejinay July 27keedii 2010 oo markaasi aan ku wareejinay wasiir ku-xigeenka anigu aan ku wareejiyay Maxamed Yunis Cawaale aan ku wareejiyay wasiirkii Cabdilaahi Maxamed Ducaale markaa ku wareejiyay Maxamed Cabdilaahi Cumar. markii dambe laakiin inta xukuumaddan kulmiyaan ku soo biiray waxaa la magacaabay June bay ahayd 30keedii 2015 ilaa hadda oo 5tii June ahayd oo 2 sano ku dhowna wasiir ku-xigeen baan ahaa. marka runtii wasiir ku-xigeenka markaan ahaa inkastoo aan u xil saarnaa safaaradaha aan mar walba labadii tii udub iyo tan kulmiya baan u xil saarnayn wakiilada xafiisyada wakiilada Somaliland oo shaqo weyn oo diblomaasiyad u qabta wasaaradda arrimaha dibadda oo ah inay ka daalaciyeen qadiyadda madax bannaanida Somaliland iyo isla markaasna dalalka ay la joogaan oo kaliya aan ku ekaan haddana qusuladaha iyo safaaradaha markaasi jooga in iyaga laftooda ay ka howlgalaan. maamulka kolley gaar bay wasaaradda ugu xil saartay labadii wasiir markaa jooga Cabdilaahi Maxamed Ducaale iyo markii hore dambena Maxamed Biixi, markii dambena Sacad wuu ii igmaday. marka taas waxaan ku oran karayaa labadaas sanadood imika aan joognay wax weyn baanu ka tarnay oo waxaanu sameynay 18 wakiil ayaanu sameynay oo rasmiya iyo hal wakiil oo ama safiirka wareega ah. 19 kaasaanu sameynay. waxaa kale oo noo dheer inaanu 5 imika aanu sameynay wakiil sharafeedo oo dalalka ay ka mid yihiin Netherlands iyo Denmark iyo ay ka mid tahay South Africa iyo Ghana ay ka mid yihiin kuwaana waanu sameynay. waxaa kale oo aanu sameynay ama ballaarinay ilaa 9 xafiis oo joogto ah oo ka mid ah ka Imaaraadku ka mid yahay, ka Nairobi ka mid yahay, Addis Ababa ka mid yahay, Djibouti ka mid yahay, kii Yaman oo imika laakiin Hargeysa ku sii shaqeeyo ka mid yahay, ka Ingiriisku ka mid yahay, kii Suudan maalintii dhaweyto ka mid yahay, ka Nairobi iyo Washington DC maalintii dhaweyto oo habeenta lagu sameeyay wasiirkii Sacad furay iyo kan China imika aanu ka furanayno. intaas runtii waxa weeyaan 9 xafiis oo shaqeeya oo 4 xafiis ay yihiin 4 xafiis oo bixiya fiisayaasha oo Nairobi waa bixisa fiisayaasha Soomaaliya laga soo qaata dalka imanaya ama shaqo u imanaya ama u imanaya dalxiis u imanaya Addis Ababa, Djibouti iyo Ingiriiska. 9 kaasina way jiraan. 2 xafiis baa noo suurtagelin inaanu sanadkan furno
iyo sanadkii ka horreeyaba oo ahaa ka Turkiga oo isagu arrimo ogolaansho xagga Turkiga ah aan weli aananu keenin laakiin markii hore la isla qaatay iyo kan kale Suudaan oo iyagana noo koonfurta Suudaan oo iyagana arrimo nabadgelyo wax niman marka runtii waxaan oran karayaa taasoo kaliya kumaanu samaynin ee waxaanu haddana aanu samaynay oo wakiiladaasoo kaliya waxaanu samaynay saaxiibo badan oo waxa laga yaabaa imka baasaboorada Somaliland in dalal badan ay ku tagaan oo lagu tago laga ogolado baasaboorka Somaliland waxaanu keenay ama aanu samaynay maalgashi badan oo kala duwan oo taa ugu dambeysay DB World iyo military base iyo kan kale iskaashiga nabadgelyo iskaashiga ganacsi anaga Ethiopia-na dhaxmaray Djibouti lafteedu marka arrimo ganacsi oo kale oo fara badan wasaaraddeedu wax badan bay qabatay in aan warkayga haynin bay ilaa waxba qabanayo fadhiig bay halkaas ka dhaxgalo aqoon-yahano badan oo ka soo jeeda reer Somaliland iyo wax garad baa waxay ku dhalinayaan wasaaraddiina in ay fadhi tahay wax qabadkeedan aad u yar yahay marka la fiiriyo hawlihii looga baahnaa oo inay qabato looga baahnaa horta Durano arintaas meedikan inta badan sharaxin wax qabadkiina mise waxba ka jira Durano horta waa nasiib daro maanta haddaan ku walaalo jeebkaaga waxaan ku jira ayaan kaaga waramaya nin Mareykanka jooga ama Yurub jooga ama meel kale jooga in wasaaradda arrimaha dibadda wasiiradii iyo dadkii shaqeynaya uga waramarto waa mashaakil waa mid subxaanallah inay yiraahdaan waa fadhiig markii leeyihiin ama ay qiimeyn ku sameeyaan wasaaradda arrimaha dibaddana waxa loo baahan yahay in xog badan hayaan iyo macluumaad badan ay qiimeyn ku sameeyaan waa in hayaan imika anigu macallin baan ahaan jiray macalinka markaad tahay lesson plan-kaaga markaad samaynayso waa inaad maanta marka xiisadu 45 minute dhamaato ama saacadu dhamaato waa inaad og tahay inaad ifaaweeyso markii dhamaato wixii ku qabsoomay ama casharkaaga ardayda ku qabsoomay inaad ifaaweeyso ku samaysaa adiga objectives ka lahayd sameynaya adoo ka duulaya waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda qofka qiimeynaya dawladda og yahay qorshaheedii waa inuu waajibaadka wasaaraddu qabato waa inuu og yahay waxa uu qabsoomay sanadkan waa inuu yahay waxa ku tala jirtay qabsoomo dabeetana wuxuu ku qiimeyn karaya wixii uu qabsoomay waxaan uu qabsoomin laakiin waa fadhi anigoo og inta wakaalado inta saaxiib inta xiriir aan sameeyay inta safaarado inta wafdiyaan tagay inta heer maqaam heer dal ictiraafsan igu soo dhaweysay inta dad badan oo aqoon ilaahay ku soo jeediyay ilaa inta arkayo dad badan oo sidii African Unionka iyo meelo badan ay ilaa ku soo jeediyay ilaa councilada ama golaha deegaanada Shafir iyo kala Cardiff oo kale iyo Tower Hamlets Ingiriiska ayaad ogeeyay intaasoo dhan waxay dadaal lagu dadaalay in lagu soo jeediyo ictiraaf kana garaabeen arrintaasi waa dadaal wasaaradda arrimaha dibadda iyo Soomaaliland ay gashay bay tahay marka ninka gooraya waa fadhi waan arkay in maalin dhawto lagu dhaliilayo wuxuu lahaa wasiir Saacad wuxuu noqday wuxuu wareegaa maalgashiga laftiisu waa waajib kamida waajibka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay tahayna waajibkeedu waxa weeyaan waa in ay xiriirka ama unugtaa ama samaysaa ama xoojisaa haddii xiriir iskaashi caalami ay la yeelato dalalka adduunka oo mid ah dhinacyada siyaasadda maalgashiga iyo ganacsiga mid ah marka ka maalgashiga Saacad ka howlgalay ama wasaaradda arrimaha dibadda ka howlgashay waa mid ka mid ah waajibaadkii ay Durano ay gudanayso wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maalgashigu marka gobol ictiraafkiiga keenaya maalgashigu marka dalkayga maalgashado ee maalgashi ay yimaado ama shirkad hay timaado ama qof hay yimaado ama dawlad hay timaado shaqo abuuris bay imanaysaa haddii shaqo abuuris yimaado shaqadeedii waa yaraanaysa shaqo la'aanta waa yaraanaysa haddii shaqo la'aanta yaraatana waxa yaraanaya taariibtii waa yaraanaysa ama dadkii laga baqay dhalinyarada ahaa inay gacan u galaan dad xaq jira inay qortaan markii kuligaan maskaxda ka xadan ayaad kala dagaalamaysaa waxa imanaya in heerkii nolosha ee dadku isbedelo waxay markii isbedesho heerkii nolosha ee shaqo la'aantu yaraato xaggii nabadgelyada saamiga kuma ku noqonaysa oo nabadgelyada lafteeda hadaagaysa maalgashigu waxa kale ka faa'iido yahay aad heshaa dawlad dhiirigelin ay ku soo dhiirigelayaan maalgashiyaal kale oo ay ku imanayaan oo dabeetana ay markay ku yimaadaan shirkado ku yimaadaan dalab ku yimaadaan ama shakhsiyaad ku yimaadaan interest dan baa laga yeelanaya taasina waxay noqon kartaa tub ama dhaba sahlan oo aad ku heli karto ictiraafka marka ninka ku duraya Saacad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ama ku duraya wasaaradda arrimaha dibadda waxay ama xukuumadda ku duraya waxay samaysaa maalgashi way ka door bidda ictiraafkii
dee waxa weeyaan waa shaqo ay gudanayso waana nooc ka mid ama dhabo loo mari kara ictiraafka haddii maalgashi yimaado oo interes iyo dowladihii dana badan laga yeesho marka shaqa adag inaan soo qabanno ayaan aaminsanahay wasaaradda dhaliilaha farada badanna aad leedahay dhaliilahaas maaha kuwa mudan dhaliiluhu maaha dhaliishu waa inay durhaan oo cilmi ku salaysnaataa waa inuu og yahay anigu warbixino badan iyo dhaliisha hebel baa wasaaraddii arrimaha dibadda kabaa la dulmaray waa inuu FLS haya wuxuu ku dhaliilayo laakiin wasaarad shaqaysanaysa oo shaqaysan nin baan maalin hore waan sheegay TV-ga hon cable TV aan ka sheegay meel kale waxa weeye nin baa wuxuu nagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda waa ninka ugu dhaliisha badan buu maalintii dambu doonay inuu tasdiiqin u sameeyo wuxuu yiri xagaan kugu yimaada tasdiiqin baan rabay wasaaradda arrimaha dibadda kugu imanaya wasaaradda arrimaha dibadda dhowr sanadood ka hor ka guurtay buu ii tagay oo dabeetana uu leeyahay xagaa joogto markaas waa wasaaradda waxa ku jira wasaaradda warshadaha ku jira waxaan ku yiri wasaaradda warshadaha markaan ku yiri ma waxaad dhaliilaysaa wasaaraddeeda leedahay waa fadhi iyo waxba qabanin adigoon ogeyn meeshan ku jirno oo 5 sano ka hor kugu dambeysay halkii ay deganaan jirtay marka dee qof masalan wuxuu u arkeen ama mucaarad ha noqdo ama shakhsiyaadka kale ee xukuumad diidka ama wanaag diidka aan ilaado ama anaada wasaaradda waxqabadkeeda inkaraya ama dafiraya wuxuu duraan ka dhigtay boog laga xoqo meesha ictiraafka Soomaaliland marka waa inuu yiraahdo lama shaqaynin lama dadaalin lama sameeynin laakiin halka qoraaladan ku soo diyaarsay waqti aan u helaynin inta dalaal u tagnay inta meeloodaan soo marnay inta booqashaan u tagnay inta maalgashaan u sameynay inta ma garanaysa qoraalaal u sameynay ilaa hadda khubaro ayaan adeegsanaa cadeynaya Soomaaliland midowgeedii iyo midowgii Soomaaliya 1 July inaanu sharci ba ahayn ba aanu sameynayno marka waxyaabo badan oo aan waqtigeedii aan imanino ayaan dadaalnay in Soomaaliland imika noqoto in loo isticmaalo de facto status على إرادة حيل ترتوه والله ما عامله وأدوك ما معامل إنجليز كلا ما عامله حاجة ما نبي دولها إثيوبيا جيبوتي مكان لا معامل شكيني دولها أدوك كلنا وين لا معامل الصومالي de facto يعني ده يشور من هنا ومن هي أنت ما فدري لكن وحقيقة ترتاح Soomaaliya عندها لقى قرصين كلام شريتان كيدو marka adduunka kale imika halka ku hayo inta qof ka garowday Soomaaliya oo siyaasiyiin la Mareykan oo Ingiriis leh oo African Union kile ninka ka diidan ee Somalilanderka ama Soomaaliga ee waa fadhiga wasaaradda arrimaha dibadda saaci aamin lihi waxaan mu oranayo waxba waa beenaal ama mu oranayo waxaan jir buu sheegay laakiin wax jira moodi weey aad ma astahay taas inta saga gudubno dhawaan intaad soo maqnayd waxaa dhacday isku shaandhayn madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweynaha Somaliland xilalka dadkii ay saameysay adaa koob ka ahaa waxaa lagu wareejiyey wasaaradda qorsheynta halka laga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda sidee u aragtaa isku shaandhaynta horta aan ku saxay lagama qaadin waa laga bedelay waa laga bedelay waxa weeyaan runtii doorta madaxweynaha marka horanaysa ay madaxidka 3 Juun 2015 marka wasaaradda arrimaha dibadda horena oo shaqeyn kan ka shaqeynay aan waan jeclaa wasaaradda kale aan isla waxba ka sii tali kara lahay waxa qofku jecel yahay inuu marba jaan u barto wasaaradda cusub si fiigaaga ayaa aqoonta iyo motivation ka lafteedii waa ku jiraysa wuxuu fiican yahay qofku 2 sano ama 3 sano markuu meesha joogo wasaaradda joogo ama meel kale ka shaqeeyo uu sameeyo wax tale wax ka qaban karo marka waxa weeyaan doorta waan ku hambalyeynaya madaxweynuhu igmaday inuu haddana xil kale iyo magacaabo wasiirka ku-xigeenka qorsheynta qaranka iyo horumarinta oo ah wasaarad iyadana lafteedu muhiimadeeda u leh qaranka u leh oo shaqo badan oo qabata waxaan qabaatay inaan kole sidii iyo si ka badanba aan u sii shaqeyn karayo shaqaalihii wasaaraddeedii hore arrimaha dibadda si fiican kole maalinta xil wareejintan u mahadnaqay nala shaqeeyana way mahadsanyihiin shaqaale kale oo iyadana cusubna waan baran doonaa insha allahu tacaala ninkii la ii geeyana de waa ninaan saaxiibna maxamed ibrahim aadan ismaaciil qabyatile oo runtii daanuna saaxiibaan nahay marka runtii waxaan isleeyahay sacadba wuxuu ahaa aan halkan ku wada joognay isba wuxuu ahaa ninkiina tababaray waxyaabo badan oo community-ga Somaliland Somali community loo jeedo Somaliland ma jiro Lambeth Somali community oo South London ku taalay Lambeth ku taalay waxa weeyaan chairman 7 sano isma in badan baan wada shaqeynay waxyaabo badan aan sabab ku faanto noloshaada markii dambe shaqada iyo mustaqbalkii oo faafacay waxaan ka bartay laftiisa sacad baan ka bartay qabyatana de waxa weeyaan inaan saaxiibnahay badan aan islaahay siyaasadda wasaaradda wada jaan qaateen waxaan ku rajooynahay hadii ilaahay ka dhigo marka noqdo inaan isagana wasaaraddaasi aan isla jaan qaadi doono oo aan wada kicin doono oo aan ka wada shaqeyn doono kays labada wasaaradda markaad fiirisid oo aad qiyaastid way aragnimadaadii cilmigaaga keebaad dalka dadka wax ugu qaban kartaa baad islaada anigu horta runtii labada wasaaradda markaas miisaanka saartay inkastoo isu dhow yihiin labada wasaaradda horta runtii labada wasaaradda tan la dawaa jooga way aragnimo waan leeyahay way aragnimadeedii imika muddaan lahaa waxyaabaha qaldan iyo waxyaabaha hagaagsan iyo halkay wax ka qaloocan yihiin waan ogahay xog badanna waan hayay runtii
oon isleeyahay waxbaa dee intaa kasii qaban kari lahay laakiin alla ma qadarin laakiin tanna waxaan isleeyahay lafteedu waxaad la geli doontaa dardar cusub iyo dee niyuun cusub niyad cusub tamar cusub ama energy cusub iyo la geli doontaa iyada lafteeda waxbay ka qabanaysaa marka runtii dadkaa ku qiimeynaya aniga ima qiimeyn anigu meel baan ku fiicnaan lahayo aan jeclaayo waxbarashada ahayd oo macalin baan ahaa educationkayga backgroundkayga iyuu ahaa la foolaan ka soo baxay educationkan masterska ku sameeyey anu waxaa isleeyahay wax meesha wax ka qaban lahayd waxbarashada ayaa ugu muhiimsanayd aan aada u jeclaa laakiin tanna waxbaan ka qaban karaya qorsheynta qarankana waxbaan ka qaban karayaayo waxa weeyaan dee political boss way waxani uma baahna adoo taginoo gala laakiin waxa weeyaan dee hagidda iyo hogaaminta iyo waayo aragnimada iyo managementka iyo waxaad leedahay waa transferable skills waa xirfad aad u bedeli karto meesha kasta tagto marka ama qorsheynta joog ama arrimaha dowladda joog ama waxbarasho joog ama arrimaha gudaha joogo waxaan isleeyahay wixii aqoontaada iyo xirfadda lahayd ayuunba halkan u bedeli karaysaa ku dabaqaysaa waxuunbaa ii dhiman waxay qabato waajibaadka wasaaradda qorsheyntoona ogaado iyo sida u shaqeeyaan shaqaalahan isbarano dabeetana waxaan ku rajo weynahay inaan la qabsan doono la jaanqaadi doono aad baa maste intii aad joogtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland hawl adag baad soo qabatay sida aad sheegtay dabcan hawl marka la qabtana waxyaaba adag oo kula soo gudboonadaa jira oo habboon in aad ama shacabka la wadaagtay ama aad hal iyo laba soo tuftid waxyaabihii kuugu adkaa intaad wasaaradda arrimaha dibadda aad ka shaqaynaysay hal iyo laba maalmood taaban kartaa horta runtii wasaaraddan dee tiim ahaan baan ku shaqaynaya wasiir baan la shaqaynayay tii hore wasiiru dowlana wuu jiray tan lafteeda iminka wasiiru dowla maxamed maxila boqoraan nagu soo biiro isna aadan u soo si fiican iminka aan u wada shaqaynay marka horta dee tiimka wasaaradahaad wada qabanaysaan dee waa tiim un baan ka mid ahaa uno wax gaar ah oo ii gaarahoo oo aan isleeyahay waad ku faani kartaa ma qabanin laakiin waa laga wada qabtay agaasimaha waxda siyaasadda ayla qabtay dhiijiga ayla qabtay wasiirada ayla qabtay waxyaabo badan baa ayla qabtay wakiilada iyo safiirada lafteeda haddaan nala shaqaynin dhammaan noo suurta gashay laakiin anu tanislaado waa kugu darnay inuu maalintii ugu darnay siyaasadayda waxay ahayd runtii maalintii aniga cali xoor aanu tegaynay waxay ahayd horaantii 2010 bay ahayd waxaan umalaynaya January bay ahayd mise February aniga cali xoor gaana tegayno qolo balaare la oran jiray oo Faransiis ayuu dekada deneysay ayaa aniga cali xoorna tiri waan soo tusayna marka waxaan isku haynay dekadanu sideedan bay ku wanaagsan tahay oo ay ku shaqayn karaysa in muddo ah iyo ma extension hal la sameeyo dabeetana gaana mid ku taala ay doonayeen la soo tuso oo tema miyay meesha ay ku taalay ayayna soo tusayeen dekadaas ayna soo tusayeen gaana ahayd dabeetana muhaddahay faarax jiro waliyahay ayaa markaasi na wareysatay ujeedada safarkeega safar baa markaa waxay weydiisay su'aal gaara maadaama wasiirka arrimaha dibadda ku-xigeenka ahaa wasiirkiina ay weyday marka taas lafteedii ayaa maalintaasi waxay weydiisay axmed maxamed maxamuud siilaanyi oo markaa ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iminka ah laakiin markaa guddoomiyaha markaa xisbiga kulmiya ahaa oo xawleygii dowladdii riyaale markaa isaguna waxaa la socday maxamed cabdillaahi cumar markaa isna xogay arrimaha dibadda ahaa marka hadal bay iga weydiisay su-aal ahaa inuu yili madaxweynuhu oo guddoomiyaha markaa xisbiga ahaa wuxuu yidhi federaal baan aaminsanahay dabeetana taasaan ka jawaabay jawaabtii aan ka jawaabay ayay markaasi la twisgalay anigoo maqan dabeetana wuxuu maan maqnay Nairobi anigoo joogno waxay taa maqaaxiya dadkii kaga sheekeynayaan wariyaa qolo yalo in yaro xuna oo wasiir ku-xigeenaha ninkii dhammaayay axmed siinaay mujaahidka dalka xoreeyay yidhi ma soo geli karo dabeetana hargeysa la soo hadlay waxa lagu yidhi madaxweyne axmed maxamed siinaay oo guddoomiye xisbiga kulmiya ma soo geli karo waar ma odhan saasay ahayd dabeetana waxay ahayd horta maalintaasi ayaa intii ka dambeysay si kale loo dhigay dabeetana imika inta qaarkood kama dhaadhiciyo waxay dhahaan waa ninkii siinaay ma soo geli karo ayay yidhaahdaan markii dambe u cid noqdayna meel kasta gaana meeshan taga waxaan Australia u tagnay Mareykankan tagay Canadaan tagay meeshan tagaba waxay noqotay maameed oo nagu noqotay waa kaninkii siyaasada soo galay marka runtii marka aan waxaan oranin laga sameeyana way adag tahay inkastoo dawba soo gali kara aan hadal xun ahayn ragga badan qaar kood laga sameeyay hadal ka xun hadana taasoo ma igu xumaydo bariyo dhanbaan xumar miidiyum baan ku jiray anigoo la ka margay waxba murmine iska qiro waxa tirada daayir yaalay Cabdillaahi Maxamed Ducaale ay soo diray dabeetana taasi horta igu darnaydan ka xasuustaa bariga ahayd markan kale waxay intii markii maxamed biixi oo ahaa musharaxa taageeray oo maxamed biixi iyo wasiirka ahi
maalintiisa casilayna runtii markaas wasiir ku-xigeenka adaa ahaa wasiir ku-xigeen marka ahaa Okay. markaana runtii aad baan uga naxay oo wasiirka markaa isla qabsanay oo tegey aan isla wax badan connections badanna uu lahaa oo adduunku in badan ka soo shaqeynaysaa wax badan baad ka faa'iidaysan kartaa macallinna runtii ahaa oo markan burcad joognay standard 5kii inkastoo isagu ilaakeeyo xagga da'da ka carara maxamed bixi taas lafteedaasi waan ka naxdin maalintii ugu xumayd bahayd waxaa sameeyey garan waayey taageerada marka ay barashana qaar ugu saareen inaan ana iscasilaan maxamed bixi raacay war xaggaan wasaaradda uga tagnaa anu maxamed bixi dee wuxuu kuma qanacsanay inuu isku casilo because waana magaranaysaa waxbuu tirsaday inuu wasaaradda sii joogaan la jeclaa inkastoo nin sacad cali sharba yimo isaguna aan runtii aada u soo dhaweeyey wax badana isla ay uga tegi karaan wasaaraddan arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waay su-aashan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ahaan baan weli kugu wareysanaya maadaama aad xilkii wareejin oo adigu weli aad haysa ha wasaaradda arrimaha dibadda somaliland waxaa la ogyahay in ay tahay reer somaliland wasaaradda ay ictiraaf raadinta uga fadhiyaan idinka ka hor 91 ka soo bilow ilaa iyo haddana weli ictiraaf somaliland lama hayo maxaa sababay in la waayo ictiraafka somaliland oo aad ku guuldaraystaan inaad keentaan mase jirtaa waxyaabo aad dadka siyaasiyiinta ogtihiin oo aad shacabka reer somaliland aad ka qaranaysaan kayso horta bismillahi raxmaan raxiim horta duraanow ma jecli inaan ku yala celiyay laakiin waan ku celceliyay ilaa horta 91 kan wasaaraddan arrimaha dibadda la aasaasay xilligii ilaahay naxariista cabdiraxmaan axmed cali madaxweynaha baa la aasaasay sheekh yuusuf sheekh cali madar baana wasiirka ugu horeeyay waxa marka runtii 12 maanta marka sacad lagu taro waa 12 wasiir ayaa soo maray 8 wasiir baan dowladda manaynaya inaan 5 wasiir ku xigeen ahayn baan u manaynaya anigu 2 jeer baan ku soo noqday iyo 4 xukuumadood xukuumaddii cabdiraxmaan axmed cali xukuumaddii maxamed xaaji ibrahim cigaal aawna xasaan la soo gaaray anigu markaasi xukuumaddii daahir ayaala la shaqeeyay iyo xukuumaddan axmed maxamed sinaayo afartaa xukuumadoodna waan soo maray marka ilaa intaa 25 iminka sanad guuradii 26aad baa loo dabaaldegay sanad guurada 26aad aan u dabaaldegnay ilaa intaasi 26 sannadood juhdi un baa la gelinayay dadaal un baa lagu waday sidii ixtilaaf dalka wasaaradda arrimaha dibadda shaqooyin badan bay qabataa oo dalka u qabataa waa wasaaradda arrimaha dibadda waa maamulka siyaasadda arrimaha dibadda iyo dee xiriir inay la samayso iskaashi dalalka caalamka inay danaha Soomaaliya ilaaliso inay protocol u samayso wasaaradaha ufuuda baxaya kuwa soo degaya shaqooyin badan bay qabataa laakiin higsiga ugu weyn ama fishanka ugu weyn wuxuu ahaa inay ictiraaf raadiso Soomaaliya dalka si loo ictiraaf lahaa taa weli ma ogaan laakiin ictiraaf iyo tafaariqa ayaanu dahnaa inuu guurano sameeyna iyo meelo kale dadka gaarsiinay waxa markaasi horta isleeyahay way idinku baqdeen ma jirto waxa laakiin laga bilaabaya 1997 wixii ka dambeeyay inta hore waxa ahayd in institutions la dhiso nabadgelyadii la dhiso dawladnimadii la dhiso maamul wanaagii la dhiso waxyaabaha soo dhan waxa 2002 intii xisbiyadu ay yimaadeen December 2000 iyo labadii markaasi iyo ay ka bilaabato xagga dimuqraadiyadda iyo hanaqaadkan in laga iibiyo qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliya si maxamed Saciid Geesma wasiirka aan jiray waa maalin isagoo shirkada wuxuu badeecadan iibin jirnay waxa ahayd waa nabadgelyada marka nabadgelyada iyo maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda iibinaysa haday wax ka dhiman yihiin dama iibin kartid marka horta dhowr sanadood waxay ahayd dagaaladii munaafaqada ee sokeeyay ayaa meesha ka jiray maamul wanaag baan jirin institutions wala dhisay maamul wanaag wala sameynayay waxyaabo badan ayaa sameynaya marka de waxaan imika soo gaarsiinay xil aad ay fact status waxaanu cadeynaynaa in Soomaaliya historically ay tahay inay xaq u leedahay inay dal ictiraafo iyo baayo Soomaaliya kowdii July iyaga la midoobay walaalahooda Soomaaliyeed iyo si voluntary matodo calimaan waxay ahayd dawladda Afrikaanka ugu horeysay waan iibinay inay tahay 15aad ee xornimadooda ka qaadato gumaysigii anigu maxamed baan helay colonial ma ahayn waxaanu cadeynaa haddana lafteedu inaanay xaajadan u gubahayn 5 dal oo Afrikaan iska inta kale inta isku tageen ay haddana kala noqdeen oo ay kamid tahay Syria iyo Masar oo isku tagay waxa Senegal iyo Mali waxa isku tagay Senegal iyo Gambia Ethiopia iyo Eritrea kala baxay koonfurta Suudaan ba kala shantaas ay la mid tahay marka wuxuu diiday Soomaaliya in xaqooda marka morally illegally iyo historically waxaan u cadeynay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga iyo xukuumaduhuba waxay cadeeyeen halkaas cadeeyeen أنا كل شيء بدنا هاك ماشي كقولتين صرتوا كقولتين وحكرنا عدينا درانو إنك صار يدك قال كل علي لكن عندنا واحد عدينا إن لفتي ده سيب مدوجين لفتي ده سؤال صحني ماذا مدوج الشك كل شيء وتام حد دليلوه على الإسكامه هنا ما ينسي قال كل الإسكامه لكن إفرس ولا سبعة سب كوبي لحن كي كل شيء بقى السمية
union act of union lama geynin waxay geeyeen January 16 act of union wax la yiraahdo ay national assembly loo diray marka dilaan ay saluugeen siyaasiyiinta markaasi waxay qaadeen dastuur bay qaadeen afti oo ah 20 June 1961 aftigaasi Soomaaliland intoodii badan boycott bay ku sameeyeen waa qaadaceen waxa codeeyay intii codeysana 350 ayaa u codeeyay ha ma ay u codeeyay inay diideen dastuurkii iyagoo markaas saluugsanaa act of union kan iyo midowga si wax loo maamulay qaadku ka dhacay markaas siyaasiyiinta oo eedan aanu bulshadii iyo shacabweynaha Soomaaliya ma eedan waa siyaasiyiinta markaas kursi doonka ahayd 20 June markii ay dhacday arrintaas haddana waxba lagama qaban diimadii lix degmo ka koobnaa wax la yiraahdo in degmooyinka Ingiriisku ka tagay Soomaaliland waxa ahayd Boorama ahayd Hargeysa ahayd waxay ahayd Burcay Berbera ahayd burcay ahayd laascaanood bay ceergaabeen lixda afartii degme ee ugu dadka badnaa boqolkiiba 60 ilaa 27 ma yaba codeeyay oo leeyahay dastuurka way galeen codeyntii way galeen kuwaas way galeen way u codeeyeen markii cidi isku joojin weyday oo aftidii iyo dimuqraadiyadii iyo codkii shaqeyn waayeen waa ta keentay in 1961 inqilaabkii militariga ahaa December dhicisooway inay isku dayeen saraakiishii reer Soomaaliland ee ka soo jeeday Soomaaliland ee Hargeysa ku sugnay taasina markaas waa tii fashilantay ee la qabqaban jiray waxa kale ku cadeynaya haddana October isla 1962 waxa is casilay wasiiradii Soomaaliland ka soo jeeday Soomaaliya ku jiray oo ilaahay xasan xaj Ibrahim ku jiray shaqaale Ismaaciil ku jiray nin kale Yusuf Ismaaciil Samatar ku jiray markii dambe haddana baarlamaanka way noqotay la sameeyay intaas idoo isku bay joojinayeen war waxaan waa sharci daro wal afiyuunayeen ma shaqeynayo waxyaabaha soo dhan waxaan ku sheegayaa kala ama galaan isagoo u baahan in la xuso waxa weeyaan imankii saraakiisha la inqilaabada Durano inqilaabka ugu qabtay la qabqabtay la xilay maxkamadda soo taagay Janaan Daawud ba markaa ahaa ilaahay xasamanay shirka gaashaaniga ee la taagay halkaasi 1963 bishii March ninkii garsooraha ama gudoomiyaha maxkamadda kama xaakimka ka ahaa Ingiriiska ahaa uu dhisay eedii lagu soo deeyay saraakiishaasi muxuu ku salayay because matching buu yiri act of union dhaxmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya dawladda nimankii siyaasad lagu soo taagay marka the act of union ka hadaba jirina midnimadii ama guurkii Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya dhaxmaray ma waxba kama jirayaan waxa kale ku sheegay in yar baan ku daro Soomaaliland iyo Soomaaliya way midoobeen Durano Soomaaliya waxa lagu midoobay magaca Soomaaliya Republic baa lagu midoobay Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo in la weydiinayo international magaca iyo international ayaa Soomaaliya Dimuqraadi Republic Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya la yiri marka saadana waa la bedelay imika waxa ogaatay in markii hore TFG baa imika xukuumadda Soomaaliya ka jirta waxa weeyaan waa Soomaaliya federal Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya halkan uu kana in dowladda anagu waxaan nahay Somaliland Republic waa jamhuuriyadda Soomaaliland baan ognahay iyana waa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayay yihiin imika magaciiyo inta xitaa ku heshiinay ku geeyay ma jirto xitaa ansixintii heshiiskaasi la heshiiyay Geneva Convention markii ay waxyaabaha lagu eegay heshiiskaas ku ansaxay ma jirto waxa soo dhawr soo bandhignay waxaan soo bandhignay reportkii 3 April ilaa 4 May ee African Union ku ay keeneen laftoodu ahay inay Soomaaliland special case arintoodu tahay si special case na loo dhaqmo taasna iyadana maxana lagama soo qaadin waxa soo dhan waxa sameeyay waa dadaalay laakiin laba arrimood baa loo diiday laba arrimood loo diiday waxa weeyaan Soomaaliland iyo dowladaha Afrikaanka qaarkood oo cabsi ka qaba oo been iska dhaadhiciyeen haddii Soomaaliland aqoonsado inay xuduudihii Afrika oo dhan isbedelayaan taasna ma mid jirta ma Soomaaliland waxay kala galanaysaa xuduudihii ay gumaysiga ka dhaxashay oo African Union Charter ka maamulayso iyo waxa ay utobosiditis Latino asiyo basas ah in wax walba markii isbedelaa ma dagaalaco sida lagu daayo marka ta kale waxa weeyaan dad kale laga dhaadhiciyay haddii Soomaaliland la ictiraafo waxa god weyn ugu shiridaya ama mugdi ku soo dhacaya اعترافkii nabad ku soo dabaaladii koonfurta Soomaaliya ka sii xajiraysa iyo walaalaha ay Soomaaliyeed Durano ee siyaasiyiinta ah ee xamar jooga oo kii kasta markii loo yimaado ee uu yimaado ee kursi ku sameeyay Faransa halka walaalaha maxaan wada qabsanaayay qadiyada iyo waxaan ay ka tashigayo inay dadku dad walaalaha u yimid ayay lahaayeen ayuu bilaabay xaasidnimo tabatana dagaalka ugu weyn madaxweynayaasha
soomaaliya iyo nimankan haysa wasaarayaasha ka noqdaan ayaa waxay noqdaanba inay ku faanaanba xaasidnimo iyo inay godoon siyaasadeed iyo inay arrintooda waxba kabjiraan ka noqdaan dagaal lala gala su-aashaas waa la socotay idinka siyaasiyiinta 27 sano shacabka Soomaaliland intiraaf idinka sugaya inaad raadisaan isku wada dar idinkoo dhan welina ma haysaan 26 sano ma jirtaa waxyaaba shacabka aad ka qaranaysaan idinku aad ogtiin maya wax alla waxaan ognahay ma jirto ta ugu dambeysay lagu soo riixay ahayd in wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland maadaama wax ka dhaxayaan la wada hadlo taasina waa tii public laga dhigay ee labada goloba baaskaliya xukuumadda mandate loo siiyay la hadli karto waxa laga qarinayaan isla ay wada qarinaysaa ma jirto kays taariikhda baa soo sheekaysay ilaa 60kii midowgii union actkii aan baa soo sheekaysay arrimo badan baa soo sheekaysay Soomaaliland aqoon-yahano badan iyo siyaasiyiin baa waxay ku xantaan idinka siyaasiyiinta reer Soomaaliland inuu itiraafkii meesha loo baahnaa ka raadin oo ah arrinta ka soo sheekaynayso Soomaaliya ilaa 60 ka soo bilaabatay maxaa idin diiday inaad siyaasiyiinta Soomaaliyeed albaab ku garaacdaan oo tiraadaan waranagu shalay saasana isugu nimid maantana saasana kala tagaynaa ama aan ku heshiina si kale maxaa idin diiday idinka Soomaaliland saas duraan markaan imika tiraado Iceland aan qabano waxa inoo baahnaan oo yoolkeenu yahay inaan Iceland qabano waxa inoo banaanaanaya ku wado ma tareen baan raacinaa ma baabuur baan raacinaa ma xagaasanu ka soo wareegnaa laakiin yoolkeenu waanu gaano Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo wakiil uga ahayd mar walba yoolkoodu ama higsigoodu waxa inay Soomaaliya ictiraafayso marka meelo badan ka warwareegto aakhirkii waxaanu isku daynay inuu haddana oo loo ogolaaday February aan manaynaya January markaasi February ahayd in loo ogolaaday shirkii Soomaaliya halkan lagu qabtay inay ka qayb gasho xukuumaddu in lala wada hadli karo Soomaaliya wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland oo bilownay waxaana lagu ansixiyay shirkii halkan lagu qabtay 23 February 2012 in Somaliland iyo Soomaaliya Somaliland iyo dawladda TH ama cidda bedeli doonta waa 16 qodob iyo ka soo baxay warmitiyeedkoodii qodobka lixaad baa sheegay in la dhiirigeliyo wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya inay mustaqbalkooda ka wada hadlaan diyaar baan u ahay waa bilaa saddex baa ka dhacay Ingiriiska mid baa ka dhacay Jumboha waxa ka dhacay Dubai buu ka dhacay Djibouti buu ka dhacay iyo afar Turkiga toddobadaaba diyaar baan u ahay fashilka iyo waxa lagu heshiiya xagoodii ka imanayay xagga Soomaaliya madaxda Soomaaliya ayay ka imanayeen laakiin anagu mar walba daacad baan ahayn in wada hadalladaas laga mila dhaliyo oo la cadeeyo mustaqbalka iyo xiriirka walaaltinimo ee Somaliland iyo Soomaaliya yeelanayso laakiin ee baa u damnayd waxba u qoolnaa nimanka mas'uuliyiinta ee madaxda ka ahaa ee shirka wada hadallada waday ayaan daacad ka ahayn waayo waxa cadeynaya xitaa waxyaabaha lagu heshiiyay wax badan bay ka baxayeen oo laga wada hadlo wax badan bay ka baxayeen December 22keedii baan u maleynayaa ama 22kii way ahayd 2014 Xasan Sheikh iyo madaxweynuhu waxay isku arkeen wada hadalladii Djibouti way isku arkeen Ismaaciil Umar Geeli goobjoog buu ahaa Ismaaciil Umar Geeli goobjoog waxa ku jiray qodobadii warmutiyeedii ama heshiisyadii qodobadii dhex bay ahayd marmanaya mid kamid ah wuxuu sheegayay in Somaliland Soomaaliya inaan carqaladaynin mashaariicda horumarineed ee Somaliland Xasan Sheikh uu ka balaalay intuu jabiyay ayuu berbera corridor European Union iyo igad iyo ku wada jiraan la ogolaaday ayuu hor istaagay marka ninka maanta wada ii diiday berbera corridor dad Soomaaliyeed ka manfaacsan lahaayeen oo dawladda Itoobiya dad badan ka soo galay dawladda deegaankii Soomaaliya oo laga yaabo cid walba inay ficilado ganacsato badan oo reer koonfureed iyo iman lahaayeen oo Soomaaliya qiim ay iman lahaayeen ninka hor istaagay muxuu wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliya ka rabaa inay maladana ka soo jeeda maxaa ka soo jeeda markii la weydiiyay anigu ma weydiinay laakiin wuxuu ku dooday Xasan Sheikh inuu waa laga dul talaabsado in waxba ugu malaysay ama mustaqbal dal oo dad walaalaha ay xusoo kordhaya oo wali hore wax u tirsanayay dhibaatooyin sheeganayay in marka wada hadalladii diyaar baan in halkii ka soo socdaan insha Allah su'aasha ugu dambaysan marinay halkan ku qoranta ay weydiin doontay laakiin wada hadallada waan wadnaa laakiin waxa weeyaan aqliyadii fikirkii saliimka ee koonfurta Soomaaliya ee ama Soomaaliya ayaan jirin oo siyaasi wadaniya oo aan arko oo iminka islaayahay uu oran karayo war Soomaaliland iyo Soomaaliya maxawdan nin walba inta la siiyo group uu ka eeganay waxaan ka dusha Soomaaliya laga dhigay uu ogeynaa Soomaaliya ninka Soomaaliya ka soo jeedo masuulka ka dhigtay inaan hargeysa tagay uu ogyahay hadana dusha laga Soomaaliyeynaya inkastoo deemka la iska sii bareero si ay caadi ba iska noqotayba dadana hoostana waxa weeyaan Soomaaliya bay noqonaysaa marka waxa weeyaan iyaga laftoodii waxba ka hayn
nin baa weydiiyey waxaan ku yidhi Somaliland iyo Soomaaliya dood ka galnay haddii Somaliland iyo waxay ahayd Great Soomaaliya doonayeen shan Soomaaliyeed baynu midoobay midnimadu way shaqayn weyday iyo Great Soomaaliya Soomaali weyntii Djibouti waa taas oo walaalayna alxamdulillah bay ku jiraan Ethiopia dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia ka tirsan tahay September baan tagay 2015 joogay soo dhaweeyna ma sha Allah way marayaan NFD iyo iyaguna waa kuwaas Kenya ka tirsan waa mashaal haddana inaguna laba kala noqono oo iyo inta sida calabaha dowladaha Bahrain iyo Imaaraadka iyo Qatar iyo dhulkan anagu iyo inta fariisana maxay nooga baahaya taabay noogu badanaysaa oo Great Soomaaliya imka wax la ma jirtay day buu yiri wallahi taabiis ma baan weydiinin marka de waa xaqli u baahan duraan oo bisaankiisa iyo waqtigiisa in la helo iyo dadkiisa way tan wada hadalka Somaliland hadda dawlad baa ka dhalatay Soomaaliya dabcan de xukuumadii 40 sano iyo xoogaaga waa isbedeshay waxaan sheegay in wada hadal diyaar u yihiin maray ka hadlayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha idinka reer Somaliland maxay idinka diyaarsan taas waxa nooga diyaarsan haddana aanu cadaynay horena u cadaynay wasiirku sheegay xukuumaduna u sheegtay waanu soo dhaweynay doorashadii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xukuumaddiisaasna waxaanu filaynaa in ilaahay u fududeeyo horta hawl badan baa u taalay isaga laftiisa hawsha isagoo nabad ku soo dabaalid iyo maamul wadaag iyo inuu isku duubo dadkaas loo rabo haddana waxaa u taalaa si wada hadallada arrimaha dibadda siyaasadda dibadda lafteeda inuu arrintii Somaliland iyo Soomaaliya lafteeda dee inuu wada hadallada halkii ka sii wadaa iyaguna way yiraahdeen laakiin Somaliland horena waa cadaysay imkan waa cadaysay toddoba wada hadal baa jiro kii March 2015 kii fashilmay kii dambeeyay April 2016 loo gogol xaalayay waxa lagu xulay waxa ay dawlad cusub baa dhalanaysa dawladda cusub markii toban wada hadalkii bilaabayna imkan Somaliland iyo xukuumadeeda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga waxa ka go'an in wada hadallada halkii ka soo socdaan laakiin qaab ka duwan qaabkii hore loo galo qaabka ka duwan qaabka loo galo waa laga wada hadli doonaa runtii laakiin waxaan maanta halkan ka cadeynayaa Durano inaanu diyaar u nahay in wada hadalkii Somaliland iyo Soomaaliya in wada hadallada halkii ka soo socdaan kayse siyaasiyiin badan iyo aqoon-yahano waliba reer Somaliland waxay idinku xantaan in dekada iyo kara doorka iyo arrimaha hadda aad sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya idin siiyay idinka Somaliland idinka wada enjoy gareeyay amaaraadka heshiis kula galay arrintaas maxaad ka sheegi kartaa horta arrintaasi waxa weeyaan waa way soo bixi lahayd horena wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Saacid uga jawaabay waxa weeyaan DB wada heshiiskii ugu dambeeyay 19 March 2017 wadalkiisa wafdigii madaxweyne ku-xigeenka ka mid ahaa oo Saacid ku jiray wasiirka hawlaha guud wasiirka ku-xigeenka madaxtooyada wasiirka ku-xigeenka xiriirka golayaasha wasiirka gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali de waxaad arkaysay nimankii Faysal Cali Waraaba ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ucid ahaa intuba way joogeen heshiiskaasi wuxuu kala saxray dawladda Imaaraadka iyo Soomaaliya ma kala saxray waxay ka wada kala saxreen intaas ah haddii ay taasi jirtay sameeyeen waxa arkaysay dawlad ama hal waxaan taamaan iska daayay niman badan oo mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo ka soo jeestay heshiiska waliba base ka soo jeestay DB wadnooda way sheegeen waxay yiraahdeen share bay ku leeyihiin oo dad bay ku leeyihiin waxba ku jiraan taana hore u cadaysay anigu waxaan qabaa eedaas inaan sal iyo baartoona lahayn wax ka jiraan aan jirin xukuumadda markii hore military base kani hore u soo qaatay inuu arrintan uu kala hadlo Eritrea markuu deganaa inuu halka yimaado Soomaaliya intaan digi marmarinaya marka de wax la yiri Soomaaliya laana ma ictiraafsana marka lama geli kartan heshiis DB World markii ay timi heshiiska la gashay ayuu markaas ku soo dhiiranay yimi laakiin uu marayn maayo mana jirto ogaalka inta ogay Allahu a'lam de wax iga qarsoon laakiin sida uu Saacid sheegay xukuumaddu sheegtay TF dawladdaasi Soomaaliya lug ay ku lahayd ma jiro way dhawaan guddiga doorashada Somaliland wuxuu soo saaray in doorashada la geli doono November kama dambeys waqtina waa sheegay maantana madaxweynaha Maxamed Siilaanyo wuxuu soo saaray saxaafadeed waqtiga iyo date-ka la geli doono doorashada haddii doorashada Somaliland xilligaas la qabtay dib uga dhacdo ma soo kartaan siyaasiyiinta reer Somaliland waa dhaawacdeen dimuqraadiyadda Somaliland horta runtii Ilaahay naguma keeno laakiin runtii dubadhigidii maalintii dhowtay iyo duruufo badan ay jireen oo abaara jireen oo de qofka damiir leh aanu oran karayn doorasho ayaa jiray karta ama dalkan ka dhici karta xaaladdu sida ay ahayd iyadoo haddana arrintaas cudurdaarka weyn lahay article-kan editorial oo markaas fasaxay in doorashada dib loo dhigo maadaama aafo ama dhibaato ay timi ka baxsan wadda banaadamka ama wax la arkay aan la arkin ay ahayd waxay ahayd haddana dhaawac bay noo keentay runtii dhaawac bay noo keentay niman badan oo
taageeri jiray dimuqraadiyadda somalilan ayaa saluug badan muujiyey niyad jabna ku dhacay iminka laakiin waxay ku qanacsan yihiin inaan laga dambaysiinin doorashadaasi muddada 13 Noofambar 2017 u malayn maayo iminka inay wax hor istaagaya jiraan doorashadaas waxaan ku rajoonayaa in waqtigeeda ka dhaco haddii Ilaahay na gaarsiiyo way ismarwaa siyaasadeed baa wuxuu ka taagan yahay wadamada qaliijka oo aan daris ka nahay dabcan laba group baa loo kala jabay groupka ay hogaamiyaan Sacuudi Carabiya iyo Masar iyo horboodaha ka yihiin dawladda Somaliland ama Somaliland waxay sheegtay inay ayaga raacsan tahay taageersan tahay maxaa kusoo kordhin kartaan baad isleedahay haddaa reer Somaliland tihiin isbahaysigaas horta runtii wax matara ma jiro adduunka wax yar tara mooyaane kole xumaan ku tarayna shalayna shirkii de kole 10 Juun ayay ahayd 10 Juun bay ahayd shalayto ayay ahayd shirkii golaha wasiirada caadiga ah madaxweynuhu gudoominayay kole xaaladda markay warbixinta dhageysteen khamiistii markii hore waxa la yidhi dub inooga yar dhigoo aanu shirkii golaha wasiirada si ay ugu maqaalaan aan joognay waxa la dub aanu dhigno dabeetana xaaladda aanu kala eegno markii la eego horta siyaasadda badda Durano saaxiib joogto ma maslaxad joogta bay leedahay marka waxay isku qanciyeen maslaxad joogta maslaxadii ay u arkayeen inay tahay inay taageeraan mowqifka Sacuudiga iyo Imaaraadka maadaama xiriir ganacsiga soo jireena iyo dhaqan dhaqaale uu naga dhaxan jiray Sacuudiga in la taageero mowqifkii iyo go'aankii uu ka qaatay khilaafkii siyaasadeed isaga gadar soo dhaxgala maayo kaasi Soomaaliland la taageertay waxaanay kale Soomaaliland qodobada kamid ahayn hawadooda oo markaas leeyihiin cid isticmaali karta aan ogolaansho ka haysan ay jirto oo runtiina iyadana taasna ay ku mashangalayeen go'aanadooda shalayto iyo in Soomaaliya ay cirka iyo dhulka iyo badda Soomaaliya aan laga weydiin karo waxba laakiin Soomaaliland iyada wax laga weydiin karayo marka hadda kulay hiil bay noqonaysaa taageerada aan taageerno hadda wax kala haddaad eegto waa hiil aanu taageernay ama fikirkooda ku raacnay hiil buu helay taageeruha maadaama dalabada eegida maadaama anaguna maslaxayado iyo dadka kulay wasiirada iyo meesha golaha wasiirada xukuumaddu anu ma joogo laakiin dalaha laakiin opinionka dadka kale ee halkan joogay Yurub iyo meelaha la soo hadlayo way ku taageereen waxaan go'aan fiican bad qaadateen gadar iyo xiriir ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya jeedeen dhowto maan gadar baan la maqlay anagu waan tagnay bergilo taaniga December iyo afar wasiir xiriir naga dhaxeeya gadar ma jirin ba laakiin Sacuudiga xiriir soo jireen dhaqan xoolaheeni baa ku xiran ganacsi baan ka xiran Imaaraadka waa kuwa imika DB weed iyo isticmaalaya waxa military base-ki xiriir fiican baa naga dhaxeeya marka danaha iyo maslaxada dalkaanu saaxiibkana waxna naga dhaxeeya baan taageernay hiil loo noqonaysa wax matar ma jiro mooy wax yartar mooyaan wax matar ma jiro wax ku noqonaysa dhanka waxa ku jirtay hadalka taageerida dhanka hawada hawadaanay see loo maareynayaa diyaaradihii qadar oo dhan baa dul marayay horta ay kaaw baa dawla laga ashtakeenay soo wasiirka duurista farxaan aadan hayba uu sheegay kulay waa xabashada waa loo gudbinaya si fiican marka wixii xabashadaasi kulay kaaw baa maamusha kaawna Nairobi way saliigadu hawada Soomaaliya inta lagu heshiinin waxyaabahan kula heshiisidii ka baxbaxayeen Somaliland iyo Soomaaliya midna ma maamusho marka Nairobi waa maamushay hay'adda qaramada midoobay meelma kaaw marka waa loo gudbinaya khilaafkaas hay'adaasi idinka sabab u ah la sheegaya Soomaaliya Somaliland in la soo wareejiyo xataa iyaga sabab u ah oo Soomaaliya Somaliland isku haysta hawadii oo kala dacwoonay ku heshiin weydeen arrintaasi inta lagu heshiiyay bay Soomaaliya ka baxday anu dhinacayaga markan waxa ay akhrinoo iyo boodkayga haysano wala yaab inay wax kala sheegayaan laakiin intaan anigu ogahay daacad kama ahayn xukuumadda xasan shaqeena inay wada hadallo mina dhala iyo wixii lagu heshiiyay taasa kaaga tusaale kaaga fiican Durano wada la marinayo hor istaagay ma hawo ogolaanaya way oo ku soo oomiyay Ramadaan waa lagu jira Afrika lagu dheeraaday dardaarankaada ugu dambeeya ee aad shacabka Soomaaliland u jeedin lahayd iyo wixii aad ka tagtay ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim horta dardaaranka Soomaaliland aanu jeedinayaa waxa weeye marxalad baa lagu jiraa xilli doorasho lagu soo socota horta waxa weeyaan in la midoobaa oo u midoobaan doorashadaasi inay nabadgelyo uga dhacdo saddex nin baa tartamaya horta ninkii Ilaahay u qoray imanaya taasi waa shaki kuma jiro nin baan maalin ka sheekiyay wuxuu ugu yiri anagoo udubahoo ordayna ayuu maalin ugu yiri war maxaa la xiiqaysaan walaalihii baan waday doorashadii June markaa waa la soo cagcageynaya waxbuu sheegay baa la faalfaaliyaa wuxuu yiri wareele xidigahan eegayo wax maxfuudka iyo waxba kuma qorna inuu Axmed Maxamed Siinaayo madaxweyne noqon karo dalka ka noqonayo dabeetana waan yaabay aniga waxaan ku lahaa maxfuudka xagga ka soo daalacay madaxweyne noqday dad badan aaminsanay inuu Axmed Maxamed Siinaayo madaxweyne aanu waqti aanu noqonaynin waa jira
qaar aan aaminsanayn inuu daahir yaala madaxweyne noqon waa jira waxaan xagga samada ilaahay ka bixinaya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi muuse biixi cabdiye faysal cali xuseen faysal cali waraabe ilaahay baa horta og imanaya laakiin waxaa loo baahan inay doorashadaasi annagoo midaysan oona kala qaybinin inay noo dhacdo nin waliba xisbigu taageeraya qofku doonayo isleeyahay dan u arko inuu dalkan dan u yahay ama uu ka saari karo marxaladahan waxa weeyaan inuu codeeyo laakiin nabadgelyada laba midabo oo la ilaashado dacaayadaha faraha badan kutalkutaanka aan jirinna waxaa laga yaabaa inaad imika aragto miidiyaha marmarbaad soonaysaa inaad duraan ama Facebook oo gashaa iyo website-yada iyo mareegaha waxaad arkaysaa social media oo dhan waxaad arkaysaa been cad oo laga sheegayo shakhsiyadiisa dadnimadiisa waxaa soo la qorayo iyadoo hablaanta iyadoo aan jirinba marka taana waxaan oran lahaa war waxa ilaahay inta ka yaabtaan haddaan qofku ku arkaynin ama cid kale ku arkaynin magac been aad samaysato ilaah baa ku arkayna ilaahay ka yaabto waxa fidmada ah ee dadka kala qaybinaya sameeya waxa kale uu sheegaya iyagana miidiyaha dadkan la soo taagan shirbeeraadka la soo taagan ama reernimada ku hadaaqaya ama waxyaabaha kale aan jeclayn dadka kala qaybinaya fidmooyinka iyagana laftooda qolada miidiyaha laftooda inay laftooda ka taxadilaan baa loo baahan yahay miidiyahan anu waxaan oran lahaa ilaahay bisheeda gaarsiin khayrkeedana Allah ina siiyo laakiin waxaan jecelahay inay midoobaan isku duubnaadaan doorashadan u diyaar garoobaan walaalahayga Soomaaliyeed waxaan leenahay xasan maxamed cabdilaahi farmaajana waxa weeyaan wuxuu Soomaaliland gashadon buu ka helayaa waa nin waa loo qabaa yuhum badan baa loo qabaa hunguri badan baa laga qabaa inuu wax weyn ka bedeli karo Soomaaliya ka bedeli doono waxa soo dhanna inuu wixiisi hawshiisana dhamaysto Soomaaliland wax dhibaato aan u leeyahay waa hadalladii halkii soo wada baan ugu maamaya maxamed cabdilaahi farmaajana madaxweynaha uu dadaalaya laakiin degdeg baad moodeen ku jiray jaranjartii roor ugu koro roor baa laga degay Soomaaliland inuu tartiibsado oo wuxuu qabanayo وقبطاو ما وفي عنه انت رسول قبل كمان برنامج كان soo taxna taariikh caawa mudada dheer aan mahad celiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland haddana wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta waa Axmed Aadan Ismaaciil Kayse oo lagu soo booqday studio Home Cable TV oo ku leeyahay magaalada London ee dalka Ingiriiska aniga iyo farsamo yaqaanada Qadar iyo waliba wasiir ku-xigeenka wada jira inta barnaamijka midnimada ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo هون كيبل هذه أد في عيني هذه أد نوضة ولا أدي حافظتها هي دي ميلا كلها بدنتها هي ومرايتها ميدا بين سير معنا نولو الشطاي ميسان تاون عمليو يو بوغادين عن أدريا هون كيبل تي في أو runtii aynu oran karno waxa weeyaan siraadka u soo baxay ومرايتها ميدا بين سير معنا نولو الشطاي بعد هون كيبل تي في ee ku dadaasha inay daboosho baahiyaha ummadda ay xil ka saarayeen inay gaarsiiyaan madal dhaxo dadku marag u yahay